أيتها الأخوات، أيتها الأمهات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد تحية ولا شيء مسلمة داي وحانو الدردار ما يعنفتا إذا إيتين به عبسيد الله إيا إن آنو هرمرسنا نفتين عمل وناكسن أو صوبا مالين أين مال إيا عرور من نوحبكو قبنين انتا كدب ولا ليال موضوع عن ربعين إن لو ذا وحوكو سابسيني مكانة المرأة قبل الإسلام وبعد الإسلام. باسك قبل مسلمة دا أي شوكتا إسلام ككهر يجاهل يدا سيولا دقمي تيرين قبل مسلمة دا يا دين تينا وناكسن باسك أي دجسي قبل مسلمة دا يا هلك أي استاجسي. انت أنا كحلين إسلام كباسك أودك قبل مسلمة دا aan fiiriya xaalka haweenka islaamka ka hor. haweenku islaamka ka hor dalalka Yurub, Hindiya iyo jaahiliyada Carabta waxay ahaayeen kuwa ka dooda haweenku insaan miya mise waa shaydaan. bal waxay ka doodi jireen haweenaydu insi miya mise waa xayawaan. wadamada qaar haweenaydu waxay ahayd mid aan waxna gadan karin, waxna laga gadan karin, waxna aan hanan karin. dalka Shiinaha waxay ahaayeen kuwa aaminsan haweenaydu inay tahay qofka ugu shar badan dhulka korkiisa. haweenaydu waxay ahayd islaamka ka hor mid aan qiimo lahayn, mid la iibsado lana soo gato sida xoolaha, lana dhaxlo haddii ninkeedu uu dhinto. waxayna ahaayeen badeeco raqiisa oo ceeb iyo fadeexo ku dhex joogta bulshada ay ku dhex nooshahay. sidaa awgeed ayaa loola dhaqmay mararka qaar cayayaanka sideeda oo kale, bal waxaa laga saramariyay xoolaha. waxaana la aasi jiray gabadha muslimadda ah iyada oo nool. Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay asagoo arinta ayada inooga hadlayo بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. marka walaalayaal waad ogtiin gabadha muslimadda aqaabka loola dhaqmi jiray, bal ayada oo nool yaa la aasi jiray oo la hogayn jiray. waxa hogayn jiray aasi jirayna waxay ahaayeen qof dadkii ugu xigay, aabaheed iyo ehelkeedii, hataa ma aha waxa dilayay aasiyay dad meel kale ka imaaday. marka walaashayda muslimka ah maadan ku helin cisiga iyo sharafta waxaan ka ahayn diinteena islaamka. walaashayda muslimadda ah qabso oo ku dhageyso qowlka Allah isaga oo ka waramaya xaaladii hore ee islaamka ka horeysay oo ay tahay in aad xasuusato ayna tahay in aad ku maadiso Allah mar hore iyo mar dambe nimcada uu kugu galladaystay awgeed. wuxuu leeyahay Allah subhanahu wa ta'ala isagoo arinta ayada inooga hadlaya بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا بشر أحدهم بالأنثى ذل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. لا إله إلا الله. markii loogu bishaareeyo ilmo dhadig ah ayuu wajigiisu noqdaa madow asagoo ka calool xun, wuxuuna ka qariyaa dadka naftiisa. ma sharaf darru ku dhex jooga mise wuxuu ku aasaa ciida. waxaana sharca go'aankooda way nolol xabaalayaan, wayna dilayaan, wayna aasayaan gabadha ayada oo nool ee dhageyso walaashayda muslimka ahay. waxaa la yiri saxaabi la oran jiray Abdullah ibn Muqaffal radiyallahu anhu wa ardaah wuxuu la fariistay nabiga sallallahu alayhi wa sallam. waxaa ka muuqan jiray wajigiisa murugo iyo tiiraayo, murugo weyn iyo tiiraayo badan. nabiga sallallahu alayhi wa sallam baa weydiiyay sababta murugadiisa aan kala go'a lahayn. wuxuu yiri rasuulkii Allah waagii jaahiliga islaamka ka hor waxaan ka tagay xaaskayga oo xaamila ah oo waxaan u baxay safar dheer, soomana noqonin ilaa sanada ka hor sanada kadib moogi. waan soo laabtay mise waxaa ii dhashay gabar aan arkay ayada oo la ciyaaraysa ciyaalka yaryar. waxaa ka muuqday qurux, baarinimo iyo wanaag.
waxay ahayd gabar yar oo aqli badan qaayo badan oo qurux loo dhameeyay oo lagu indhaqabowsado markaan sugay aniga oo hubsanaya in ay dhimatay iyo in kale waan soo qaaday oo aan ku yiri hooyadeed qurux ayadoo og in aan nolol xabaalayo markaasay hooyadeed diyaarisay oo tid iyo cirib sii qurxisay ayada oo hammi iyo murugo saaran tahay intay dhistay gabadhii yarayd yay tiri ninow hadayicin amaanada ilaahay ninow hadayicin amaanada ilaahay wuxuu yiri Abdullah ibn Muqaffal radiyallahu anhu wa radaah waan kaxeeyay gabadhii ayada oo calool xaaran faraxsan oo bilic iyo caraf la ifaysa oo la aaday war kamida waraha waxaan cabaar ku jiray waraha oo baadi goobayay ceel halka ku yaalay saanu imid ceel sal dheer oo biyo la'aan ah waxaan istaagay ceelka afkiisa aniga oo fiirinaya gabintaas markaasuu qalbigaygu nuglaaday nolol xaarnida calool xaarnideeda iyo dambi la'aanteeda ilmaha yarka ee saqiirka mise waxaan soo xasuustay ceebta iyo fadeexada ay dumarku ku leeyihiin bulshada markaasaan qalbigaygu sii adkaaday wuxuu yiri Abdullah ibn Muqaffal radiyallahu anhu wa radaah isaga oo raadiyay xoog intaan soo qabtay gabadhii yareed ama gabadhii yareed baan ceelka salkiisa afka ugu tuuray subhanallah markaan sugay aniga oo hubsanaya inay dhimatay iyo in kale mise waxay leedahay aabow macaanow dayacday amaanadii aabow macaanow dayacday amaanadii ayadoo ku celcelinaysa ilaa codkeedii uu ka go'ay ee wallahi rasuulkii Allah warkii aan soo xasuusto dhacdadaas waxa ay fuula hammi iyo murugo oo aan jeclaadaa in aan ahaado mid dhintay oo aragiisa la waayay haduuna islaamka jiri lahayn wuxuu fiiriyay nabiga sallallahu alayhi wa sallam mise ilmaha ka qubanaysa garkiisa qoysay isagoo leh sidii la yiri sallallahu alayhi wa sallam Abdullah ya wallahi hadii aan cid ku oogi lahaa had dambi uu galay xilligii jaahiliga waan kugu oogi lahaa laakiin islaamka waxa lagu dhaafay wixii hore ee dambi hore loo galay walaashayda muslimada ah ku mahadnaq Allah subhanahu wa ta'ala diinta islaamka yeelay dhamaan gabdhaha caalamka ku nool walaalayaal waad ogtihiin islaamka ka hor sida la inoo dhaqmi jiray iyo qaabka la inoo gali jiray bal la inaga hoos marin jiray xayawaanka bal laga doodi jiray gabadha muslimada insaan miya mise waa bini aadan oo waxyaalo aad loogu quursado oo aad looga murugoodo oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala ay tahay inaan ku shukrino islaamnimada iyo nimcada uu nasiiyay ee ah mid ugu horeysa ay tahay islaamka booska islaamka gaarsiiyay dumarka haddaan dib u fiirino taas waxay ahayd booska ay lagu dhaqmi jiray gabdhaha diinteena islaamka ee sharafta badan intayna iimaaneen qaabkee loola dhaqmi jiray waa shay aad muhiim ah inaad ogaato qofku ma ogaan karo nimcada uu haysto ilaa uu diinta islaamka uu soo galo asagoo gaala bal inagu aan ku dhalanay manzilada hadda aan taaganayne inagu baan aragnay laakiin gabdhihii inaga horeeyay diinta islaamka ka hor qaabkee loola dhaqmi jiray booska islaamku gaarsiiyay haddaan u soo laabana gabadha muslimka ah markuu islaamku yimid wuxuu karaameeyay haweenayda wala fiirsada walaal Allah subhanahu wa ta'ala booska uu gaarsiiyay wuxuu karaameeyay gabadha wuxuu karaameeyay qofka dumarka ah hooyo ahaan muuna ka tagin wuxuu karaameeyay diinteena ay karaameysay gabadha marwada ama gabadha xaaska waxay diinteenu karaameysay gabadha yarta ama guriga ku joogto waxaan u naqaano ilmaha yarka aan u naqaano yay diinteenu karaameysay Allah subhanahu wa ta'ala isaga oo ka tagin oo mid kaste xaq gaar u yeelay oo noo sheegay manzilada ay taagan tahay gabadha muslimada inta aan guda gelin waxaan rabaa dhamaan gabdhaha muslimaadka ee meesha iskugu imaaday inaan wax yar hal su'aal in weydiiyo ilaahay waan ku dhaartay qofkii su'aasha iga jawaabo wuxuu iga mudan yahay jaa'iso ama abaalgud aad u weyn su'aashaas waxay tahay waxaad ka soo saartaan kitaabka quraanka suurad lagu magacaabo suuratul rijaal ama suurada haweenka ragga ma jirto bal Allah subhanahu wa ta'ala meeshuu ina gaarsiiyay wuxuu inagu magacaabay suurad la dhaho suuratul nisaa bal wuxuu si gaar ah haddana u si magacaabay suurad la dhaho
oo gabdhaha magacooda loogu magacdaray suuratu maryam sidoo kale allah subxaanahu wa tacaala waxaa jirta suurad loogu magacdaray qisadii dhex martay gabadhii la dhahayo khawla oo ah suuratu mujaadil allah subxaanahu wa tacaala nimco aad u weyn waaye nimcada uu ina siiyey oo uuna siinin dadka kale ama ragga haddaan aan fiirino iyo diinteena islaamka aan booska ina gaadhsiisay ayna gaadhsiinin dadka kale inta haddaan kaga gudno bal aan fiirino inagoo mid ugu istaagayna diinteena islaamka say u karaamaysay gabadha iyo say u karaamaysay hooyada iyo say u karaamaysay gabadha xaaska ama gabadha marwada ah booska ay gaadhsiisay bal nabiga sallallahu alayhi wasallam xadiiskan qof kasta oo akhriya wuxuu ku tadabburayaa oo ku reebaysaa waxyaalo maxaa la jiray gabadha muslimka ay aad uga farxi karto nabiga sallallahu alayhi wasallam meesha uu ina gaarsiiyay maalinka uu istaagay nabiga sallallahu alayhi wasallam yawm al-arafa ahayd uu istaagay nabiga arafo ahayd yawm al-wadaa nabiga sallallahu alayhi wasallam sidaad ku wada garanaysaan xadiiska uu inoo dardaarmay nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu ka hadlay mowqica irdiga qofka bini aadanka sharaftiisa inaan meel looga dhicin wuxuu ka hadlay diinteena uu nabiga sallallahu alayhi wasallam ay ka hadashay maalku ka hadlay bal nabiga sallallahu alayhi wasallam marna muuna ilaawin inuu ka hadlo gabadha muslimada asagoo booska taagan nabiga sallallahu alayhi wasallam muuna ilaawin inuu ka hadlo gabadha muslimada uu u dardaarmo ragga wanaag inay gabadha muslimada ay ogaadaan xuquuqdeeda sida saxiixul muslim ku sugan xadiithul jaabil radiyallahu anhu wuxuu ka hadlay nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu ka hadlay dhiiga nasabka xoolaha mana uuna ilaawin nabiga sallallahu alayhi wasallam inuu cadeeyo qiimaha ay leedahay gabadha muslimada ama ay ku leedahay booska ay diinteena islaamka ina dejisay nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay ittaqullaha fi an-nisaa fa innakum akhadtumuhunna bi amaanillah wastahalaltum furujahunna bi kalimatillah nabiga sallallahu alayhi wasallam mowqica weyn ee maalinka weyn ahayd uu nabiga sallallahu alayhi wasallam uu dardaarmayay waxyaalo badan uu ka hadlay haddana waxyaalo ku soo qaatay waxa kamid ahaa inuu ragga si gaar ah ula hadlay uu yiri ilaahay uga baqa haweenka waxaad ku qaadateen amaana ilaahay waxaana farjigooda ku xalaalsateen kalimada ilaahay buu leeyahay nabiga sallallahu alayhi wasallam bal diinteena waxay karaamaysay hooyada sida quraankeena ku sugan aad ogtihiin manzilada ay dejisay diinteena islaamka xuquuqda hooyada ay leedahay ay in badan ku soo celcelisay bal ay diinteenu inoo sheegtay inay hooyadu ku jirto labada lug jannada ay ku jirto hooyada labadeeda lugood asagoo la dhahay labada waalid ba loo baarin sameeyay haddana waxaa laga saramariyay oo xuquuq sare la siiyay hooyada الله سبحانه وتعالى وحول بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير الله سبحانه وتعالى وحنا دردار ميا وضدك دردار ميا إلي والدك ودواسحان سميان بل هذا نفير الله سبحانه وتعالى عدالة ديسة وأجيه هو يضي عابها إنا يسكت لب يسكت بالكينا هين وحكا صرابي إنا نو إسحان سمينا أو سخاس أو إسحان سمينا هو يضي لأنه هو يضي وحين الله صامرتي بيبوين بين الله صامرتي سيدا قصة كان حديثك صحيح المسلم وورنا يا أبي هريرة رضي الله عنه ورضى الله كرا لنقضيه وحولا يا النبي صلى الله عليه وسلم سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله من أحق الناس بحسن الصحابة قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك ودا النبي صلى الله عليه وسلم يا دتك وعلى ويدي نبا وحويدي يا دتك يقول حق لا إن أنا أصحى سميه النبي صلى الله عليه وسلم وحوداي هو يدا مر لباد وكعلي حتى وحو يري هو يدا مر صدحاد وكعلي النبي صلى الله عليه ونك كعلي النبي وحو يري هو يدا مر أفرادك وحوداي آبها وماشي إن جالسين دينتنا شرفت له أو إن عن مركز إلهي سبحانه وتعالى مر قرصان يا مر مقتوى إن الله سبحانه وتعالى دام دمرناي عن كل شجر إنه دينتنا الإسلام كأسان هران الشيء وحينو كراميسي قبض يرتع قبض ما مر أما قفك هو يدا أما آبها بيسكده هدو لا قبرير عمل يعني لبا قبض وتربية دودي أخلاق دودي وناتشيو وحالهم متيسنيا محلهم متيسنيا جنة لكم متيسنية سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه شيء في صحيحين وسنن الترمذي من حديث أنس
رضي الله عنه من عال جاريتين أي ابنتين صغيرتين حتى تبلغ أنا في الجنة كهاتين. والنبي صلى الله عليه وسلم وأشار بالسبابة والوسطى. النبي صلى الله عليه وسلم حيري قفك تربية يا أما حاجاتي لما قبض وفير صديا ولا ليال قفك تربية إيه حاجاتي يعني أيجو حن جنة كنا هاي. والنبي صلى الله عليه وسلم وحوي إشارة لبدي سفرات ساس عن جنة كنا هاي. والنبي صلى الله عليه وسلم بل مودي النبي صلى الله عليه وسلم قفك كرامة أما تربية تبون ويلمونا بل شن ويلمونا بل بقول ويلمونا بل في يريد دين تاني سينو شرفت يمشي نجارسيسي قفك إلا بقبض أو يرير تربية دوده حاجاتي وحالكم متيسنيا جنة لكم متيسنيا مركب ولا ليال وحاول أكسن الله سبحانه وتعالى إن نكون شكرنا أو نكون مهد نقنا أو إلهي أعلن مركز مهد نمعاد أو نسيي أو توقف هذا يتاي نعمة الإسلام أو ثاني يتاي نعمة الإيمان أو تصدحات هاي نعمة القرآن. وإلهي سبحانه وتعالى أي دينتي أنه قرئنا أو قاضي هوين إذا مرنا ميقان كذا كرلو ميلين سيدينتي أنه إسلام كأي قرئنا أو ياشي هران أو مدعين كلمة لا إله إلا الله سيكروا ياشي هران يكذب منا كرلو ميلين دينتي أنه إسلام كا أركب ولا ليال وين إلهي سبحانه وتعالى أنكو شكرنا أن دينتي أنه استاجنا بوسك أي إن استاجسي أو نسكدنا إن أنقل منه هدانا هاي قبل مسلمات oo diinteena haysato oo ku faana diinteena ayna ku dayanin gaalada iyo manzilada ay dajiyeen haweenka iyo si haweenka ula dhaqmaan iyo inaga diinteena si inoo karaameysay. marka walaalayaal mawduucayga waa in ku dheereeyay halkaas aan ku soo afjaraya waxaan saxay waxay ka ahaatay Allah subhanahu wa ta'ala agtiisa waxaan khaldan waxay ka ahaatay naf iyo shaydaan. Allah subhanahu wa ta'ala waxaan weydiisanaynaa inuu naga dhigo min alladheena yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.